degdeg Mrs Wall ayaa hadda waxa loo dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Haddaba gabadhaasi waxa lagu xiray waxyaabo ay si aad ah hadii bulshada Soomaaliyeed ay u maqlaan ay u dhibsanayaan Somaliland ay markaasi ku taageerayaan xariga gabadhan Mrs Wall oo caan ka ah aaladda TikTok-ga. haddaba fikirkaaga ka dhiibo sida aad u aragto gabadhan lagu xiray Hargeysa muuqaalkana marka hore la gare sina share gare oo la wadaag saaxiibadaada si ay u ogaadaan sirta ka dambaysa xariga Mrs Wall. Mrs Wall ayaa saaka waxa ay aroornimadii hore ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo oo ku wajahnayd magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. haddaba markii ay tagtay ay magaalada Hargeysa ka degtay diyaaradii ay la socotay garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ayaa halkaasi gabadha lagu xiray waxaana loo xiray sida ila xoggaal ay inoo sheegeen in jacayl uu ka wada dhaxeeyay inkaan helihii nabigeena khayru khalqillaahi nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aflagaadeeyay ee caayay Somaliland damiirkeeda uu siiyay in ninkii nabi Muhammad caayay alayhi salatu wasalaam oo magaaladii Hargeysa iska tamashleynayo jacayl baa ka wada dhaxeeyay oo saaka inta aysan ka duulin magaalada Muqdisho ayay barta ay ku leedahay TikTok waxay soo dhigtay wiilka sawirkiisa iyadoo leh waan ku sugula ay xabiibi waan ku jeclahay bal maxay jeclaataa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo yiri xaasaskiina nafaftiina waalidiintiina awlaadiina iyo maalkiina wax walba ka jeclaada nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yiri ayaa canug yaro daba ku xaraa oo stupid dhalaa waxa uu markaasi aflagaadeeyay ayuu si ka tamashleynayaa magaalada Hargeysa Somaliland inta xukun beena ku riday ayay markaasi sii daysay wiilkaas ayay jeclaatay sidee u jeclaatay ayaa lagu xiray gabadhaasi waxaana arintaasi soo dhaweeyay dadka Soomaaliyeed oo markii ay maqleen in jacayl uu ka wada dhaxeeyo wiilkii nabiga caayay ee lagu magacaabo naclad Allah ku ridee Haykal iyo sidoo kale Mrs Wall ayaa jacayl ka wada dhaxeeya markii dadku maqleen si carale ayay dadku markaasi uga hadleen xariga gabadhan Mrs Wall aad ayayna u soo dhaweeyeen waa inay ku farxeen haddii nabi Muhammad jeceshahay walaalkayga Soomaaliyeed sallallahu alayhi wa sallam muuqaalkan share gare oo la wadaag saaxiibadaada si aad u ogaato ama ay u ogaadaan xaqiiqada rasmiga ee ka dambaysa xariga gabadhan Mrs Wall oo caanka ah aaladda TikTok-ga oo jeclaatay ama uu xiriir ka wada dhaxeeyay inkaan helihii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam caayay ama aflagaadeeyay waa khayru khalqillaahi min nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaan aflagaado u qurnaa waa maya jawaabtu qofkii nabi Muhammad caayay ilaahayna uma naxariisto muslimiintan u naxariisamayaan oo arlada iyo sidoo kale samada ayaa nacladu uga socotaa waa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo la yiri xitaa malaa'ikta waa uu markaasi ka sharaf badan yahay ka qeyr badan yahay ilaahayow rabbiyo raxmaan oo micigiisa inaga mid dhig anaga intii muslim ah maalinta qiyaame kulli qof walba waa uu dhimanaya waana la kala horeeyaa ayay gabadhaasi waxay isku dayday damiirkeeduna uu siiyay in ninkii nabiga caayay ee jooga magaalada Hargeysa ay xiriir jacayl la wadaagto ilaahan idinku dhaarshay miyaysan ogeyn in la dhimanayo miyaysan jeclayn nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war waxaan wax loo dulqaadan kara ma Somaliland ayaa waxa ay qorsheynaysaa in ay soo tarxiisho gabadhani Mrs Wall lagu magacaabo ee jeclaatay balaayahalihii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee Haykal lagu magacaabo waxaana suuragal ah hadii Muqdisho ay markaasi lagu soo celiyo in godka jilcu loo dhaadhiciyo maadaama ay markaasi iyadu jeclaatay ninkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaan ka magan galeynaa waxyaabahaas oo kale muuqaalkan share hadii aad inala socotay